الله الرحمن الرحيم إذا لهانتين بداوض يا الملك استوى من داونيسان وحد كسر دواتان مركل يولي ببرنامج كيني مدافعان برنامج كان مدافعان أيات داوض يال تطبيقات كذا على هالمركل صوتان شاشة التلفزيون كقرن كجمهورية الصومالية تطبيقات كان يولي ببرنامج كمدافعان وحن كسر قادم دونا داوض يال وفد بلادن وحكومة كسرة وصيب بلادن لو كسر دوي تريح داوض يال حبنا هاس يولي بحبنا كروحي صدقا أيام برنامج كمدافعان يتطبيقات كريم عن كسر قادم دونا haddaan soo qabto xubinta ugu horeysa iyo barnaamijkeena madhaafaan iyo habeenkan caawa ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa sidaan ogeyd ciidanka Soomaaliya uu yimid halkan sababta uu yimidna waxay ahayd waxa ugu weyn sida uu ahaa deegaanka nabadgelyadiisa la sugo qoriyihii shirka ka wadayna la yiraahdo warmeesha isaga taga haddana waxaa la bilownay arrimihii nabadgelyada ee labada reer oo aad garan karayso inay muddo soo jiitanayeen oo muhiimadda ugu weyn ciidanka Soomaaliya uu yimid ay ahayd ayda iyo uqaashii iyo waxgaradkii saaka arrimaha waan isugu nimid bilowgii arrintaas waan bilownay insha Allah waana sii soconaysaa waxaan rajaynaynaa inaan runtii meel ka mid ah dhalino iyadoo dowladda ka riixayso dowladda Somaliland ay diyaar u tahay wax alla wixii caqabad ku noqdo inay qaybteeda iyo sidii loo maamuli karo wax ka qaado wata xildhibaan Salama Yuusuf cali Kore waxaa jiray xubno ka hadlay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga oo eedeymo u jeediyay socdaalkii wafdigii balaadnaa ee aad qaybta ka ahayd aad ku tagteen degmada Taleex arrimahaasi sidee baad u aragtaa guud ahaan qof iyo laba iyo saddex oo hadda karaan oo deeqaf telefoon meel kaga hadlay idina runtii waad garan karaysaa waa qof hadda karaa ama laba ama saddexda laakiin dadka guud ee meesha loo yimid waxa weeye ummadda waxaanu waftigu u sheegeen waxqabad waxay u sheegeen waxtar waxay u sheegeen xoog iyo u imaan meesha ummadda Soomaaliland ay xuquuqdoodii hesho waxay u sheegeen dhibaatooyinka koronaga ee deegaanka yaalla colaadaha soo jiitay in la dhameeyo waxay u sheegeen waxtar ugu horeeyo oo raashinkii ugu badnaa 3,000 oo shay oo raashin ayaa maanta guddoonsiinay 3,000 iyo boqol ay tan oo raashina ويجي يصير كل كيشة بريشة كل كيشة دقيقة 500 كيشة سكر 600 كرتون أو سريرة ما لها هو يمكن يواجه بريشة وأساس عطها مشاريع اللي بدرس عطها جادي كذا درس عطها كي ما يركي كيف كريا سلبي تدريس كذا لفيري هو خلاص هيا كدوار يدوكو هيا كدوار ودرس على عكسي dadku jeediyeen oo dhan wafdigu waa qaaday una ka soo jawaabaya annaguna waxaan meesha u joognaa inaan isdaba raacino idmada macnaheedu maaha in ciidanka lagu cabooyo oo lagu hayo oo dad xoog lagu qasaday ay dadku ku arkaan dadka waxaa la tusayaa inay xaq u leeyihiin inay ummadda ka tirsan yihiin oo Soomaaliland waxeedii iyo wixii xaq ugu lahaayeen loo keenayo fikirkooda iyagoo la dhigeysanayo marka aad iyo aad ayaa bulshada uga dhaxday runtii u soo geeyeen qof iyo laba iyo saddex ay koodaan qiimo weyn oo sareeya ma jirto marka ma waxa aad leedahay mujtamaca guud ahaanba ku dhaqan iyagu degmadaasi Taleex iyo jiidaha la xiriira socdaalka waftigaasi balaadnaa ee ka socday dowladda Somaliland waxa uu ahaa mid ay si diiran markaasi u soo dhaweeyeen waxyaabihii laga wada hadlayna sidii loogu talagalay ama si fiican ay isula qaateen absolutely waxa weeye waa sida aad u tiri dhammaan qaybihii ay arkeen cid kasta codsiyo iyo waraaqo iyo wixii ay Soomaaliland ka dalbanayeen waftiga loo gudbiyey
wuxuu aad dalada uga riixayay oo ugu mudnaa in beeraha ama deegaanka colaamihii ka soo jiitanayay lasoo afjaro waa naluuna dowladda somalilandna waxay ballan qaatay qiimo kasta iyo wakti kasta oo ku baxayo inay arrintaas soo afjarto dadkuna aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen waad garan karaysaa degmo colaadaha 2 sannadood ay soo jiitanayeen dad walaalaha oo isku deegaan yar oo aan weliba degmo aan degmooyin aad garan karto ku nool oo dabadeedna kala xiran saako ugu dambeysay dee aad iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan la kulmo aanu dhinacyada oo dhan isugu yimaadaan meel waana bilow waanuna si technicalna waa loogu dhaadhacayaa waxaanu rajaynaynaa inay insha allah waxaanu jecelahay inay nabadi dhalato inaanu nabada ka midakeenno annagoo weliba jecel inaanu la kaashano oo ay dowladda somalilandna ka go-an tahay inay arrintaas yeeshdo dadka deegaankana fikirkooda iyo dantooda iyo qaabkii ay u fikirayaan loo daayo oo cid kastaa wixii dan u ah oo annaga sida ay noo sheegeen aad garan karto inaanu maanta oo aanu isugu yeernay oo aanu raashinkii u qaybinay oo aanu waxtarkii tusnay oo mashaariicdii loo ballan qaaday oo tii horaada dowladda somaliland inay dhammaynayso wax kasta oo turaantira ku ah ay ballan qaadeen xukuumaddii iyo weliba wasiirada shimari waad garan karaysaa sida ay u kala duwan yihiin barashadii baa la ballan qaaday oo la fulinayaa caafimaadkii baa la ballan qaaday oo la fulinayaa haddii alla xukmaayo dhismayaashii dowladii hore oo aada u dayacan baa la ballan qaaday in renovation iyo ti lagu sameeyo dadka indhahooda macallin u noqonayo inay cidi wax taraysay iyo in cidda somaliland maanta dan u tahay indhahooda dowladda somalilandna waa ka go-an aada iyo aad baa unaageysa kaasi waxau ahaa xildhibaan salawaan yuusuf cali koore oo ka tirsan mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan oo isagoo jooga magaalada taleex khadka teleefonka noogu warramayay wafdi ballaadhan oo ka socda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa gaadhay magaalada taleex halkaasna si ballaadhan ayaa loogu soo dhaweeyey bal soo dhaweyntaasi habkay u dhacday khudbadihii laga jeediyey waxaa warbixintan nooga diyaariyey oo noola socday wariye cabdicasiis maydhax isagaana inoo eegaya ee daawasho wanaagsan wafdigan ballaadhan ee ka socda xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee markii ugu horreysay gaadhay magaalada taleex oo ka mid a gobolka sanaag ayaa waxaa magaaladaasi si diiran ugu soo dhoweeyey guud ahaanba dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi taleex cuqaasha waxgaradka culimaa adduunka iyo dhallinyarada degmada taleex ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey guud ahaanba wafdigan ballaadhan ee ka socday xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee markii ugu horreysay soo caga dhigtay magaalada taleexe wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde wasiirka wasaaradda nabadaynta iyo horumarinta gobollada bari ee somalilan cali maxamuud axmed cali sandulle wasiirka biyaha ee somalilan xuseen axmed cabdille taliyaasha ciidamada booliiska iyo asluubta sarreeye guuta maxamed xuseen faarax xiirana iyo sarreeye guuta cabdulaahi fadal iimaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan xildhibaano waxgarad iyo culimaa udiin kale oo ka mid ah guud ahaanba somalilan iyo deegaanada gobolka sool ciidamada jamhuuriyadda somalilan gaar ahaana ciidamada qaranka cutubyo ka mid ah oo ku sugan magaalada taleex ayaa ugu horreynba waxa ay duleedka magaaladaasi salaan sharaf ku siiyeen wafdiga wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane wasiir waxaa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kugu soo dhowaynaya degmada taleex mudane wasiir ku soo dhowow kadib salaantaasi waxa uu wafdiga uu hogaaminaya wasiir xirsi cali xaaji xasan ay galeen gudaha magaalada taleex iyadoo halkaasi si diiran loogu soo dhoweeyey kadibna waxa ay la hadleen qaar ka mid ah waxgaradka culimaa udiinka iyo dadweynaha deegaanka taleex waxaana ugu horreyn halkaasi ka mahadnaqay imaatinka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan mid ka mid ah waxgaradka amaba isimada deegaankaasi taleexe waxaana hadalladiisii ka mid ahaa bacda salaan waxaan igu soo dhoweynaynaa degmada taariikhda weyn ee degmada taleex
oo socodkii ugu horreeyey oo maanta aad noogu timaadeen madax ahaan baan idinku soo dhaweynaynaa. ku soo dhowaada. wasiir cali maxamed waran cadde wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo ka hadlay arrimo dhinaca nabadgelyada ah iyo runtii wax badan bay gobolkan ama dhulkan dhibaato badani ka jirtay. waxaanse filaynaa haddii alla yidhaahdo dhib walba insha allahu inay maanta ugu dambayn doonto oo nabadda iyo soo dhowaashaha iyo dadka walaalaha ah aynu maanta unugno sidii ay nabad iyo wanaag ugu wada noolaan lahaayeen. wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirse cali xaaji xasan oo gebagabadii la hadlayay shacabka waxgaradka culimo awdiinka iyo odayaasha deegaanka Taleex ayaa wasiirku waxa uu ka hadlay waxyaabaha laga maarmaanka u ah socdaalkoodan ee kowka isagoo wasiirku arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ah waxaanu halkan u nimi sidii wasiirku sheegay wixii waxa weeye horumar wixii nabadayn oo darafyada mushkiladii meesha kala gaaray sidii aanu u bogsiin lahayn oo u dhaxgali lahayn oo u nabadayn lahayn oo wixii awoodayada uga qaban lahayn iyo sidoo kale wixii waxa weeye ciidamo aanu qaramaynayno oo aanu ciidamada deegaanka doonayno inay waxa weeye ciidamo noqdaan qaran oo waxa weeye deegaankii iyagu ku filaada aan cid kale u baahan sidoo kale inuu waxa weeye nabadeeyo inuu waxa weeye deegaanku waxay leeyihiin oo aan lagu khasbayn oo ciidankoodii oo maamulkoodii ayaan insha Allah taala wax kala qaban doonaa tala wax ku leedin baan insha Allah taala wax idin ka sii doonaa taladiina wixii horumar ee aanu gacanta ku haynay si wasiirku sheegay maanta waa qabanaa wixii kale baahi ay jirtana waa idin leeyahay. haddaanu daawadayaal intaasi kaga nimaadno xubinta ugu horeysa iyo weliba barnaamijkeena madhaafaan iyo habeenkan caawa xubinta labaad ee aan ku soo qaadan doono ayaa waxay tahay xaflad lagu furayay dib u dhiska masaajidka soo haleela ayaa isla toddobaadkani lagu qabtay magaalada Hargeysa. bal haddaba daawadayaal aynu eegno xafladaasi sida ay u qabsoontay markii la furayay masaajidkaasi soo haleela ee daawasho wanaagsan. xafladda lagu furayay masjidka soo haleela ee ku yaala xaafadda boqolyo kotonka ee magaalada Hargeysa kaasi oo dib u dhis iyo ballaarin casri ah lagu sameeyay ayaa lagu qabtay masjidkaasi waxaana ka soo qayb galay agaasimaha waaxda awqaafta wasaaradda diinta iyo awqaafta maariyaha wakaalada biyaha culimo awdiin odayaasha xaafadda iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan ayaa ugu horreeyna waxa ka hadlay agaasimaha diinta iyo awqaafta Cabdilaahi Ibraahim oo ka waramay ka wasaaradahan inay ku dadaalayaan sidii masjidada loo dayactiri lahaa sidoo kalena waxa uu sheegay meel la wanaajiyay inay ugu khayr badan yihiin masaajidada iyo guryaha Ilaahay. sheekh aadan siiro sheekh ismaaciil deeg sheekh maxamed aadan iyo sheekh cabdiraxmaan iyo wasiirka hore wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh maxamed suufi ayaa dhammaantood isku daba maray kana waramay ajarka iyo xasanaadka uu leeyahay qofka masjid dhisa amaba dayactira iyagoo cid kastoo ka qayb qaadatay dib u habeynta masjidkana ilaahay uga baryay in miisaanka xasanaadka loogu kordhiyo. cabdiwahaab sheekh maxamed ayaa ka waramay maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray dib u dhiska masjidkani isagoo ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid masaajidku wuxuu soo maray marxalado badan. waxa uu horeysay bilowgii masaajidka waxa laga bilaabay dhagax waageeran oo halkaa masaajidka dabadiisa ku dhamaato. markii ku xigtayna waxa laga dhigay deyr. markii saddexaadna waxa la dhisay masaajidkii oo qurux badan. waxaan ku qaadanay inaanu masaajidkii 2 sanadood iyo 3 sanadood baan ku qaadatay inaynu ummadda islaamka dhaqaale weydiino. falillaahi alxamdu dhaqaalihii baanu bilownay muddo 3 bilood ah. dhaqaalahanu haynay wuxuu ahaa $8,000. ibliiskii baan intaana la dagaalamayo lahaa idinkoo intaasoo $8,000 haya ayaad masaajid u hamiyeysaan intaasoo $1,000 ku baxayaan. maalin habeen baan isku nimid waxaanu nidhi warba kaasoo lacagteena inuu halkaasay maraysaa intaana waynu haynaaye maxaa xal ah. guddida cawaadag bay samayso waxay tidhi waxaanu qaadanay muddo dheer inaynu lacagta ku soo ururinno. halkaanu 8,000 ka maraynay ayaa 3 cisho gudahood nagu soo galeen $75,000. hawl badan baa loo galay. guddi ayaa isxil saartay. ilaahay bay abaalka ku leeyihiin.
hanku markuu yimid adduunku muu jirin laakiinse ilaahay hankiina waa rumeeyey masaajidkiina wuu inoo dhisay guddidina abaalkii bay leedahay xaafadda laga dhex dhisayna waxa muhiima inay cibaado ku soo camiraan oo ay cilmi ku soo camiraan oo ay nadaafad ku soo camiraan oo ay ilaalin iyo daryeel ku soo camiraan xafladda xidhitaanka sanad dugsiyeedka 2013-2014 ee dugsiga soos ayaa isna isla toddobaadkani lagu qabtay xaruntiisa magaalada Hargeysa. Baldaawadayaal waxaanu eegi doonaa xafladdaasi sida ay u qabsoontay, khudbadihii laga jeediyey iyo weliba ardayda halkaasi wax ka barata waxyaabihii kala duwanaa ee ay soo bandhigeen ee daaqasho wanaagsan. xafladda xidhitaanka sanad dugsiyeedka 2013-2014 ee dugsiga soos ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. iskuulkan oo uu xadhigga ka jaray madaxweynaha Soomaaliland isla mar ahaantaana ay wax ka dhigtaan arday agooma ah iyo weliba kuwa danyar ah ayaa ugu horeyn xafladda xidhitaanka sanad dugsiyeedka soos waxaa ka hadashay maamulaha dugsigaasi Sawsan Cabdilaahi Cali waxaanay ka warantay sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray dugsigani iyo weliba ardayda u gudbaysa dugsiga hoose dhexe. hadaladeediina waxaa ka mid ahaa عروض كسر غير الشيخ حفلة المناقص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد هذا المناسبة المحورية أعطينا كيشوفوا حفلة الجميع من قصة إحسان الله كيجميع وصلنا كان لهذا يكون يوصل يكون إلا لهذا يكون أول شغلنا. مناسبة الموضوع مليانة أعطينا الجميع السنة أول رئيسة لازم في كسر أيام برايمري سكول. waxaa u rajaynayaa in noqdaa kuwii diinkooda iyo wadankooda iyo waalidkoodaba anfacaan.
agaasimaha hay-adda soos ee somalilan ayaa ka warbixiyey hay-adda soos waxyaabaha ay ka qabato somalilan iyo weliba caruurta ay gacanta ku hayaan waxaana uu ku bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta doorka ay ka qaateen soo saarista ardaydan dhinac walba ka dhisan hadaladii agaasimaha guud ee hay-adaha soos somalilan waxaa ka mid ahaa
ka mida waalidiinta oo iyaguna madashani ka hadlay ayaa tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay inay arkaan caruurtoodii oo si fiican wax loogu baray loona tarbiyadeeyey. qaar ka mida ardaydan ayaa halkaasi ku soo bandhigay majaajulooyin iyo weliba suugaan ka hadlaysa waxbarashada. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydan u sarraysay sanad dugsiyeedkani 2013-2014 iyo weliba maamulka dugsigaasi. u diyaargarowga bisha barakaysan ee Ramadaan oo maalinta bari ah laga yaabo in dalka laga soomo ayaa waxaa si ballaadhan looga dareemayaa guud ahaan Somaliland, gaar ahaan caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. haddaba warbixin ku saabsan u diyaargarowga iyo sida loogu diyaargaroobayo bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waxaa nooga soo diyaariyey wariye Cabdi Almis. waxayna u dhignayd sida diyaargarowga bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa laga dareemayaa gudaha caasimadda Hargeysa, iyagoo kumanaan ka mid ah dadka ku dhaqan caasimaddu ay isu diyaarinayaan bisha barakaysan ee leh raxmadda iyo naxariista iyo dambi dhaafka. ganacsatada ku dhaqan Somaliland ayaa qiimo dhimis kala duwan u sameeyay bulshada ka adeeganaysa suuqyada, kuwaasoo fariimo kala duwan u diray kuwa aan weli qiimaha jabin ee ka mid ah ganacsatada alaabta dibadda ka keena. runtii bisha Ramadaan waan u diyaargarownaa waxaan ugu diyaargarownaa waxa weeye waa bisha ugu khayrka badan 12 bilood. waxaanu sameynaa runtii qiimo dhimis bisha oo aanu u sameyno dadka macmiisha noo ah iyo dadka runtii Somaliland had iyo jeeraale waxa jira xagga raashinka ama xagga waxkeenka wax kasta ha noqotee runtii waan ugu baaqay runtii inay waqtiga Ramadaanta dadka u jabiyaan, laakiin waxa jirta waxyaalaha had iyo jeeraale aan la jabin karin oo xoolo markii dibadda ka kacaan oo kale sida raashinka oo kale, sokorta oo kale, weelkan keeno oo kale markay kacaan ay dibadda ka kacaan runtii halkan de qaalibi ku imanayaan. taasi waa ta waqtiga de xoolo kacaan, laakiin haddii aanay wax kacay aanay jirin oo runtii aanay xoolo kicin sida raashinka oo kale waxaan oran lahaa oo ganacsatada runtii waaweyn ugu baaqi lahaa waqtigan waa waqtiga runtii khayrku uu badan yahay, marka iyagoo ka faa'iideysanaya bisha Ramadaan iyo khayrkeega inay dadka u jabiyaan ayaan faraya. bisha barakaysan ee Ramadaan oo kamida bisha ugu qaalisan ee sanadkii ayaa waxa uu diyaargaroobaya ummadda muslimka oo dhan meel kastoo ay adduunyada ka joogaan, waana bil u baahan ka faa'iideysigeeda iyo khayrka ay xambaarsan tahay. waa Cabdi Almis, telefishin qaranka Somaliland, Hargeysa. daawadayaal haddii aynu intaasi kaga nimaadno waxaan soo gaarnay waqtigii aan daawadayaasha ku nasiin jirnay heesaha dabacsan kuwa wadaniga ah. daawadayaal toddobaadkana waxaan idiin soo qaadi doonaa oo makiinada inoo saaran hees wadani ah oo ay ku luuqaynayso codkeeda macaan ay ku qaadayso fanaanada Aamina Afriik ee daawasho wanaagsan. في مدرني إشادين تجنا عدد ونويفتيكو ضرور وعدلو عبمان في مدرني قرار
haddaanu daawadayaal intaas kaga nimaadno heestaasi waxaynu soo gaadhnay guntii gabagabadii iyo weliba gudaanadkii barnaamijka madhaafaan iyo habeenkan caawa barnaamijkan daawadayaal waxaa door muhiima ka qaatay oo dhanka kamarada editinka iyo iskudubaridkaba iska lahaa khadar cabdi xaaji anigoo jamaal axmed naasirina halkan ayaan idinka soo talinayay barnaamijkan barnaamij lamida intayn iskugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa kulanti dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu